kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xasan sheekh iyo farmaajo yaale dhibcaha siyaasadeed ee ugu badan nabad iyo nolol oo cashar u dhigtay damul jadiid xamza oo bixiyay xog ku saabsan guusha kursiga qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda ee dalka ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeyne madaxweyne xasan iyo madaxweyne hore farmaajo yaa leh dhibca siyaasadeed maantana dalka uu aayay yaase lugooyay dowladnimada Soomaaliya xogtan ayaa muujinaysa in loolan siyaasadeed oo culus durbo ka dhex qarxay madaxweynayaashii hore ee dalka madaxweynihii hore ee dalka farmaajo iyo mid ka hogaamiya dalkeena xasan sheekh maxamuud xilli nabad iyo nolol cashar u dhigtay kooxda Villa Soomaaliya loolanka siyaasadeed ee labada xisbi ka dhaxeeya ayaa banaanka soo shacbaxay wixii ka dambeeyay ku guuleysiga Soomaaliya kursigii muhiimka ahaa ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa markii labaad taariikhdeeda waxa loo doortay in ay xubin ka noqoto 15 wadan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay meertada 28 ee shirweynaha qaramada midoobay oo ka dhacay New York ee wadanka Mareykanka ayaa lagu doortay 5 xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka waxaana ku guuleystay Soomaaliya, Pakistan, Greek, Denmark iyo Panama. Soomaaliya oo matalaysa qaaradda Afrika ayaa bedelaysa Mozambique. Kursigan waxay Soomaaliya hayn doontaa 2 sano. Waa markii labaad ee Soomaaliya xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hal mar ayay hore u dhacday waxayna ahayd sanadihii 1971 ilaa 22 wafdi warkacay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fiqi ayaa ka qayb galay codeynta 5 wadan ee la doortay ma jirin wax la tartamayay oo horey ayaa qaaradihii iyo kooxihii ka tirsanaayeen waxa ay uga soo garteen inay kuraasan ku fadhiistaan dowladii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa xareysay codsiga Soomaaliya ee xubinnimada golaha 2018 waxayna dowladdaasi u bareertay inay kursigan u raadiso Soomaaliya iyadoo musharaxnimadeeda la wadaagtay cid walba oo ay ku jiraan midowga Afrika qaramada midoobay iyo xubnaha aan dhicin ee golaha ammaanka waxayna arintan ka mid ahayd shaqooyinkii dhamaadka joogay ee madaxweyne farmaajo maalintii xil wareejintana la wadaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee talada haysaahi ay iyaduna dadaalkii socday si laba jibaartay nasiibna u yeelatay inay ku biirsato xilligooda shaqo kuna soo aado guul taariikhi ah oo Soomaaliya ay gaartay tani waxay ka dhigan tahay in dhibcaha shaqadan iyo bogaadinteedaba ay wadaagaan madaxweyne xasan iyo madaxweyne hore farmaajo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ah meesha lagu go'aamiyo arrimaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan nabadda cunaqabataynada go'aamada duulaanka iyo sida dunida loogu hagayo jawi xasiloon oo damaanad qaadaya badqabka qof iyo qaranba ayaa ku biiristiisa Soomaaliya u leedahay macaash siyaasadeed iyo mid sumcadeedba hase yeeshee dhibcaha siyaasadeed ee ugu xoogan waxaa haysta madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisii xasan cali kheyre oo wasaare ka ahaa taasoo muujinayso in madaxweyne xasan rikooro la diyaariyay ku soo aadeen balse shaqada inteeda badan dowladdii nabad iyo nolol ay soo qabatay haddaba Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa ku biirista golaha amniga ee qaramada midoobay 5 ilaa 6 qodob ayaa la xaqiijiyay in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto ururka ku biiristiisa waa midda koobaad ee maqaamka Soomaaliya ay ku dhex leedahay caalamka ayaa sare u kacaya xubinimada golaha waxay sare u qaadaysaa maqaamka Soomaaliya ay ku leedahay masraxyada caalamiga ah arintan waxay inoo sahlaysaa in aan danaheena ka dhex fushano golahan dhexdiisa mar haddii aan macno iyo sharaf weyn ku dhex yeelano bulshada caalamka waxay arintan inoo sahlaysaa soo jiidashada maalgashiyo gargaar bini'aadanimo iyo in taageero loo helo dadaalka loogu jiro gaarista Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la midda labaad saameynta arrimaha amniga adduunka xubin ahaan Soomaaliya waxay door toos ah ku yeelanaysaa qaabeynta go'aanada la xiriira nabadda iyo ammaanka caalamiga ah oo ay ku jiraan soo saarista go'aanada iyo waajibaad siinta howlgallada nabadaalinta caalamiga ah ee ka socda dalal dhowr ah oo Afrika ay ku jirto awood diblomaasiyadeed ayaa qodobka saddexaad oo Soomaaliya ay helayso waxay Soomaaliya siinaysaa fursad ay ku dhisato xiriir xooggan iyo heshiisyo laba geesood ah
iyo mid dhinacyo badan leh iyada oo ay ka faa'iideysanayso xubinnimadeeda si loo gaaro faa'iidooyin siyaasadeed iyo dhaqaale. qodobka afraad iskaashiyo ama isbahaysiyo ayay Soomaaliya helaysaa. Soomaaliya waxay fursad u haystaa in ay si dhow ula macaamisho quwadaha waaweyn ee veto power kale iyo dalalka kale ee xubnaha ka ah golaha ammaanka, waxayna fursad u helaysaa abuurista iyo kobcinta xiriir diblomaasiyadeed oo horseedi kara labahoobidda iyo iskaashiyo istaraatiijiyadeysan oo lala yeesho wadamada awoodda sare leh ee ku jira golahaasi. ka mid noqoshada golaha ammaanka wuxuu kor u qaadi karaa saameynta Soomaaliya ay ku leedahay golayaasha kale ee caalamka. qodobka shanaad, kor u qaadidda awoodda iyo khibradda diblomaasiyadda waddankeena. ka mid noqoshada golaha ammaanka waxay Soomaaliya ka caawin kartaa helista khibrad diblomaasiyadeed iyo aragtiyada ay ku dhisan yihiin xiriirada iskaashi ee wadamada iyo hababka xalinta khilaafaadka, taasoo qayb ka ah in Soomaaliya rajo fiican iyo han weyn ay ka leedahay saameynta dunida iyo in ay go'aano ku yeelato isbedelada caalamka iyo dunidan la isriixayo. Soomaaliya go'aankeedana uu yahay mid xitaa wada saameyn doona Afrika iyo guud ahaan caalamka. ugu dambeyntii, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa ka hadlay guusha ay gaartay Soomaaliya isagoo ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed guusha laga gaaray ka mid noqoshada in Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2025 ilaa 2026. Xamza ayaa ku tilmaamay tirada codadka ay heshay Soomaaliya guul kale oo taariikhi ah oo ay aanteen shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaa raaciyay in tallaabadan ay muujinayso sida ay dowladda Soomaaliyeed uga go'an tahay in door muuqda ay ku yeelato masraxyada caalamiga ah iyo wax ka qabashada caqabadaha iyo dhibaatooyinka amni ee ka taagan adduunka. sidoo kale Masar Xamza waxa uu sheegay in xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay fursad qaali ah dalkeenu u tahay uuna ka qayb qaato ilaalinta nabadda, xoojinta iskaashiga iyo sugidda ammaanka dunida oo dhan. Masar Xamza ayaa sheegay in Soomaaliya kursigan ay ku fulin doonto danaha gobolka iyo guud ahaanba geeska Afrika, isagoo sheegay in tani rajo weyn ay u abuureyso ku soo laabashada masraxyada caalamka ee dalkeena Soomaaliya oo 30 sano ee ugu dambeeyay saaxadda ka maqnaa. sidoo kale waxa uu mahadceliyay dhammaan dalalka xubnaha ka golaha, kuwa gobolka iyo kuwa qaaradda Afrika ee taageeray codsiga Soomaaliya. taageeradan waxay muujinaysaa kalsoonida iyo taageerada caalamiga ah ee Soomaaliya iyo saameynta diblomaasiyadeed ee xagga caalamka. Masar Xamza ayaa sidoo kale sheegay in wax ka qabashada xaaladda ammaan ee geeska Afrika iyo guud ahaan qaaraddaba ay tahay mid lagala hadli doono Soomaaliya oo waddan kale aan lagala hadli doonin, taasoo ka dhigan in awood diblomaasiyadeed oo xooggan dalkeenu uu yeelanayo. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.